كولا وسدح موادين بريجان ساجتان بنابحها كمقنانين waxaa magaalada Muqdisho ka socda diyaar garowgii ugu dambeeyay oo ku aadan banaanbaxa weyn ee rabaan xubnaha mucaaradka in biri ay ka dhigaan magaalada Muqdisho waxa caawa halkan aan hadda ku suganahay ee tahay guriga madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed waxa ka socda diyaar garow xoog leh sida u jeedaan halkan waxa yaala mikrofoono loogu talagalay in biri shacabka iyo madaxda mucaaradka ee hogaaminaya banaanbaxani in ay qaataan isla markaana ay codkooda ku muujiyaan dhalinyaro badan ayaa halkan ku sugan oo raba in biri ay ka qayb galaan banaanbaxa una soo jeeda kuwaasi oo waqti dheer ka soo shaqeynayay in banaanbaxani uu biri qabsoomo isla markaana diyaarinaya dhammaan agabyadii loogu talagalay in biri banaanbaxaasi lagu qabto 22 goobood oo ka tirsan degmooyinka gobolka Banaadir ayaa la filayaa in banaanbaxu uu ka dhaco afarta qaybood ee uu ka kooban yahay gobolka Banaadir ayay xubnaha mucaaradka ka kala hogaamin doonaan banaanbaxa hadii aan ku bilaabo qaybta bari ee degmada Cabdicasiis Mirinaayo waxa caaw ku hoyanay Sheekh Shariif si halkaasi qaybta bari uu u hogaamiyo shacabka banaanbaxayaasha ah ee ku sugan qaybta waliyo cadde ayaa waxa la filayaa iyagana in ay hogaamiyaan dadka shacabka ah ee raba inay ka banaanbaxaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Roble Koofi iyo Odawaa dhinaca kaleeto qaybta galbeed oo degmada Dayniile la filayo in ay ka soo kicitamaan oo caaw uu ku hoyanayo ra'iisul wasaare hore musharax madaxweyne Xasan Cali Qeere Cabdiraxmaan Ceynte iyo sidoo kale xubno kale oo ka tirsan mucaaradka ayaa goobtaasi iyagana caaw ku hoyanaya si shacabka banaanbaxayaasha ah ee ku sugan galbeed iyo Dayniilaba ay u hogaamiyaan iyadoo markaasi banaanbaxu uu yahay mid jiha walba oo Muqdisho ka dhici doona ahna mid weyn sida ay qorsheynayaan xubnaha mucaaradka wararkii ka soo kordha halkan ayaa kula wadaagi doona ee ila jooga Nimcaar Doofaan ayaan ahay nabadgeliyo